wasiirkii hore umuuraha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Biixi Yunis ayaa beeniyay xogo tilmaamayay inuu dalka Imaaraadka Carabta kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi waliba safiirka UK u qaabilsan dalkaas oo kala shaqeynaya sidii uu sanada 2016 hadiiba uu guuleysto xukuumadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed uga noqon lahaa ra'iisul wasaare khadka telefoonka ayuu xilligan si toos ah ugu jira wasiirkii hore umuuraha dibadda Dr. Maxamed Biixi Yunis Mr. Biixi ugu horeyn bal waxaad warbixin naga siisaa xogaha sheegaya inaad ka soo dhex muuqanayso siyaasadda Soomaaliya kuna aadan qorshe la sheegay in lagu soo bandhigay rajo la xidhiidha hadiiba uu guuleysto Sheekh Shariif inaad xukuumaddiisa ka noqon doonto ra'iisul wasaare marka sheegteen xalayto waxa la yaalo wax ka jira ma jiro Imaaraad aan arkayna ma jirto Shariif kana isma naqaano marka warkaasi war aan been ku dhisan buu ahaa si xaqiiqada ka fog adoo aan ugu dhifay Soomaaliland aan ahay Soomaaliland baan u dhimanayaa marka warka wax ka jira ma jiro meelaha ka keenteena garan maayo waxaan u arkaa inay iska tahay daacad xiisa oo aan loo baahnayn oo aan waxbana ka jirin Mr. Biixi waxa jira laakiin xogo sheegaya in 2 September ee bishan inuu ku jiro magaalada Dubai aad kula kulantay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta sidoo kale isla bishan 3deedii aad Dubai kula kulantay safiirka UK u qaabilsan dawladda Imaaraadka dhammaan kulamadaasi adigu dhankaaga ma waxaad ku doodaysaa inay waxba kama jiraan yihiin inta aad sheegtay oo wax aliyaalo wax ka jira ma jirto waa warbeena safiir Ingiriisana lama kulmin Imaaraadna lama kulmin hawlo shakhsi oo personal aan u joogay hoosteedna waxa jira Maldives وأريم الشخصية وجوجي مركا رنتي وركا وحلياله وحكي كذا مشي وركا عندنا هنا تذكيها أو شيء ده وركا عشرين سحوق لو قاسي ثاني وركا سبانها لكن بيحي اللي كان مقالة نيروبي عاصمة الدولة كينيا وحيسلقوا تاي سياسيين تدوني إنه كسر دح مقدان هيك سجل لبضة كوني اللي هي طبعا كالصوماليا هذيك محوق الشاعر ودارين هذا اللي كان نيروبي وجوكته والله هو خاطر شخصية أو بيرسونال oo areerkayga baan la joogay aruurtaydii ayaa halkan jooga oo fasaxo nimid marka wax siyaasad ku lug leh wax xamar ku lug leh wax Kenya ku lug leh midna ma joogo marka xarimaha shakhsiga ah ee personalka fasaxan uga joogna Maxamed Biixi Yunis tan iyo dabayaaqadii 2015 markii adiga iyo saaxiibadaadii xisbiga kulmiye ee Spice waa qaadacdeen shirkii xisbigaasi kulmiye Somaliland waad ka maqan tahay marnaba kama soo dhex muuqan wada hadalladii saaxiibada la galayeen xisbiyada mucaaradka ee haday noqoto xisbiga wadani iyo haday noqoto xisbiga wicid taa qudheeda miyaan loo fasiran karin inaad ka maarantay siyaasadda Somaliland oo aad ka soo dhex muuqanayso siyaasadaha dalalka jaarka maadaama diblomaasi tahay haday noqoto Ethiopia haday noqoto Soomaaliya ما Soomaaliya la siyaasadda kama maarmin si la socoto waxaan magacawnay guddi كومن إسبايسيا أو الجيران صلوا ولا حضر ولا حجود لا أحساس معارضة ولا سا لا الجيران سواء أنا من وطن كا وأنا صوص إن شاء الله ويقصوص هذه له نفسي دايو مركا شنا وجماعة مغني سياسة مركا رجع سمع عنك وذاك همسه وكم مغني هاي كمان مغنية أحبان وجسرة إن شاء الله وأنا نصف دونا مكان لكن محمد بيحي هديبا أي دعوة الصومالية حل سياسات لقاقة مقعبو أديكم أقبل إيسا مايا ما أنا أقبل أيو هرنا والله يقصور دقي ما أنا أقبل أيو Somaliland دربانا هاي وأنا دكتور مالكستون شو قضية Somaliland كيبني هل كان المانتو شو سرتي يدك على كل ما قضية Somaliland يدك يحتر كذا رغم هاي سنة وقومت شروع سياسة اللغة الصومالية وأنا دكتور هاي وأنا دنيكي دفاعي كحد يقول استاج Somaliland midnimadeeda iyo dadka dadaalay nabad iyo wanaagga ku shaqeynaya marka sinaba uma dhici karto inta noolahayn halka ku biro siyaasadda Soomaaliya aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore umuuraha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Biixi Yunis oo khadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Dr. Biixi Yunis waxa uu beeninayay xogo la xiriira kulamo la sheegay inuu ku yeeshay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta kulamadaas oo la xiriiriyay inuu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka iyo waliba safiirka UK u qaabilsan dalkaasi oo kala hadlayay
arrimo ku aadan hadiiba ay timaado xukuumadda Sheekh Shariif sidii uu uga noqon lahaa ra'iisul wasaare doorashada dabayaaqada sanadkan ka dhacaysa Soomaaliya. Master Biixi sidaad waraysigan ku maqlayseen wuxuu iska fogeeyay wararka la xiriira umuurtaasi, sidoo kale waxa uu meesha ka saaray inuu aqbalayo hadiiba xil siyaasadeed looga magacaabo Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay inuu Somaliland ku soo fuuleeyahay maalmaha soo socda kana qayb qaadan doono wadahadalada garabka isbahaysiga ee saaxiibada ay ku hayeen siyaasadda Somaliland ay la leeyihiin mucaaradka Somaliland. waraysiga waxa la yeeshay anigoo Maxamed Yuusuf Bakeyle Hanad Caraale ayaa inoo duubayay tan iyo kulan dambe fi amaan illah.